Kan waa clip-kan yar ee la dhex wareejinaya baraha bulshada. Labadii saac ugu dambeeyay baraha bulshada ayuu ku yeeshay saameyn aad u weyn. Runtii lama garan karo oo runtii wejiyadoodu u qarsoon yihiin. Laakiinse kadib baadhis dheer markii aan sameeyay runtii waxaan la xaqiijiyay in ay yihiin dagaal ka dhex qarxay Hani Sharaf iyo fanaanada lagu magacaabo Rasmi Rice. Rasmi Rice runtii waad garanaysaan kadib markii ay ka Somaliland 3 bilood ka hor ay ka dhoofeen oo runtii ay qabatay halkaas iyo markii hore halkay ka timid Kenya. Labadan gabdhood ee dagaal ka dhex qarxay runtii waxay meel bay wada joogaan oo runtii Kenya ay wada joogaan. Sidaas darteed runtii waxay hayaan saaxiibo aad iskugu dhow. Hadaba dagaalkan labadooda ka dhex qarxay runtii lama garan karo. Laakiinse dhaawac iyo jirdil culus ay Rasmi Rice u geysatay saaxiibadeed Hani Sharaf. Hadaba saaxiibaal muuqaal iyo xogag dheeraada iyo kelibyo ayaa nigaga soo wariyay saaxiibaal waxaan ka codsanayaa inaad ugu horreyn haddaad ku cusubto channel-keenan subscribe ku samayso like-na saarto muuqaalkeenan sida share garaysa si uu sii gaaro dad badan oo kamid ah asxaabteena like wax naga caawinaysa inuu muuqaalkayga noqdo kuwa ugu wacan ee YouTube-ka lagu soo baahiyo waad ku mahadsantahay haddii aad inta aan ku sheegay aad samayso saaxiibaal Hani Sharaf iyo Rasmi Rice runtii waxa ka dhex qarxay dagaal runtii aad u weyn. Laakiinse Rasmi Rice oo ah fanaanad iyo isla YouTuberad runtii ay ku caan baxday prankiyada. Sidoo kale Rasmi Rice isla taxadaradii ugu dambeeyay waxa ku sugnayd Arigan iyo Kenya. Halkaas oo markii hore kadib intaanay furin xaajigeeda Kenya halkaas ay joogtaba. Kadib markii xaajigeedii Farxaan Yare ay kala tageen ay Somaliland ku kala tageen halkaas iyo Arigeedii Kenya iskaga noqotay. Laakiinse Rasmi Rice oo runtii isla waqti xaadiradii ugu dambeeyay Kenya ku sugnayd ayaa waxa soo kala dhex galay dagaal culus kadib markii dhaawac iyo jirdil ay u geysatay Rasmi Rice saaxiibadeed Hani Sharaf. Hani Sharaf runtii qofkii hore u soo daawaday muuqaaladii iyo dagaalkii hore ee ka dhex qarxay iyadii Nimco Joker taasoo ay beryadan baraha bulshada sidaas u dhex wareejinayeen. Isla halkaasna Nimco Joker iyo iyada iyo Hani Sharaf ay dagaal runtii aad u weyn ka dhex qarxeen. Hadaba sidoo kale waxaa xasuusin mudan in Hani iyo Rasmi Rice runtii dhaawac iyo ay u geysatay iyo nabaro aad u culus. Sidoo kale kelibyo laga soo duubay oo lagu dhex faafinay baraha bulshada ayaa wad ku arkaysaa saameynta uu ku yeelatay Hani Sharaf iyo ceebta ay ka qaaday dagaalkeeda. Sidoo kale Rasmi Rice oo timir waa la falay oo runtii gabdha ayaa falay laakiinse ciddii ka dambeysay ma sheegi doono anaa ka argoosanaya. Sidoo kale Rasmi Rice barteeda TikTok ayaa waxay ku baahisay in ay cid kasta oo runtii wax ku samaysa ay Ilaahay subxaanahu wa tacaala ay ka magan gasho. Laakiinse Rasmi Rice oo runtii ah qof aad u qalbi wanaagsan. Laakiinse barihii ugu dambeeyay aroosadaheed oo runtii kadib markii xaajigeeda cusub uu halkaas Kenya ku aroosay. Kadib markii ay halkaas ku kala tageen gudaha Somaliland xaaskeedii hore ee Farxaan Yare kadib halkaas iska soo raaceen ee Ariga iyo Nairobi. Sidoo kale Rasmi Rice waxay ku caan baxday prankida iyo in ay runtii muuqaalo cajiib leh ay barteeda YouTube-ka ay ku baahisay ee dadka Soomaaliyeed ay ku dhaqan. Halkan waa channel-ka xubinta warka waxay iga xasuusinaysaa saaxiibayaal in qaybta Facebook page-ka like-ta aan la dhacdan si uu sii gaarno horumar wacan. Markasta waxaan leeyahay saaxiibayaal horumar baan idin rajeynaya.